sheekh caanka ee sheekh xasan khayre dirir oo kamid ah culimada magaalada Boorama ayaa sheegay in culimadu wax xad aan lahayn waa sida uu hadalka u dhigay. sheekh xasan khayre oo salaasada 24 Sebtembar si gaar ah u la hadlay telefishinka codka bariga Afrika ayaa jawaab adag ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga uu cid injineer Faysal Cali Waraabe. Faysal waa nin mas'uul ah, waa nin waxa weeyaan urur dhan oo siyaasadeed madax ka ah, hankiisa uu yahay ummad inuu hogaamiyaba uu soo horjoogsado, inuu caytan yani ma hayn hadal xumo xataa ma hayn oo caytamay aad buu caytamay hadal qof mas'uul ah runtii oo ilaa heer halka jooga oo ku hadlo runtii ma hayn wax aad looga yaqiiqsoodo oo qof kasta oo dareen leh runtii uu ka gilgisho ayuu ku hadlay. marka arintaas waxaan leeyahay on waliba aad ugu adkaynaya waa mas'uul weeyii inuu arinta raali gelin ka bixiyo. waxaan cadaynaynaa cayda iyo aflagaadadaasi inayna sheekha qabanin ummadda uu leeyahay waanu hadlayaana waxaan aad iyo aad runtii anigu u ogahay jawaabaha laga bixiyay hadalkiisa ayaan ogahay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarta ee aadka u tirada badan ee Soomaaliland joogta iyo Soomaaliyaba oo runtii ka bixisay jawaabo aad iyo aad u qurux badan. sheekhana raali gelisay, Faysalkana runtii nacdal dusha uga tuurtay. aad iyo aad baan u raali gelinay oo isku dayay inay ceebta iyo dhaleecada oo u soo jeeday runtii Faysal inay ka maydaan isku dayay. marka waxa weeyaan Faysal kelmadaasi kelmad runtii iclaanka gashay oo fool xun way. culimaduna xad male bari markaan sheekhan diidnada culimada Soomaaliland macnaheedu waxa weeyaan ma tagi karaan Muqdisho, ma tagi karaan muxuu ahaa bariga, ma tagi karaan wada meel kale, ma tagi karaan weeyaan. sidoo kale sheekh xasan khayre ayaa sheegay in xukuumaddu ay ku degdegtay in sheekha caanka ah sheekh Maxamed Idriis inay ka joojiso tababar uu ku qaban lahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. marka arintaas joojinta ah runtii arin qurux badan ma ahayn arintaasi. waxaan filayaa in dad warxuma tashiil sameeyay inay xukuumadda u geeyeen oo kadibna markaa go'aanka ay qaateen qolada gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha iyo maayirka iyo laga yaabaa inay go'aanka ay qaateen. laakiin aad iyo aad bay ugu degdegeen waayo culimadu xuduud male, culimadu waxa hada male wana samafalayaal way ummadda marka khayrka la dhex socda. waxa weeyaan hadayna culimadu dadka dhex socon dadku way baabi'i lahayn. sheekhana wuxuu kamid yahay dadka wareega dacwada dadka la dhex socda, wuxuu kamid yahay dadka naadirka ah ama culimada fara ku tiriska ah ee dadkii qurbaha tagay ama dibadda u baxay waxa weeyaan dhaqankoodu baabi'i lahaa dadkii gacan qabtay buu kamid yahay. maadaama uu sida yahay sheekh caan yahay horeyna aan looga baranin wax dhibaato ah oo wadanka uu ku leeyahay waxay ahayd inay arintaas ay u kaadiyaan oo ay sheekha wax weydiiyaan bay ahayd. mana aha inay ay ku degdegaan maahin arintaas. dadka warxuma tashiilka ah ee waxyaabo uu ka hadlay sheekhu oo midnimada Soomaaliya iyo wax noocaas ah de waxa la yiri likulli maqaamin maqaal, meel kastaba oraah bay leedahay ku haboon bay leedahay. marka qofku meeshii uu joogay hadalkii uu yiri in la soo qaado meel kale loo soo naqilo waxaan islaahay dadkaasi waa dad aragti gaaban, waa dad aan wax akhriin, waa dad aan runtii aan la soconin waciga guud aan la socon weeyii. marka waxa weeyaan dadkaasi in dawladuna ay dhageysato runtii ma ahayn. marka in raali gelin ay dawladdu ay ka bixiso oo arintaasi aad iyo aad bay ugu haboon tahay. aad iyo aad Cabdirasaaq Cumar Micadawliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama.